السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إدي سلام الدمان أنتو كحرين يوتيوب جنال كيغا فرحي الصومال أوفيشيال وقبديني حاسكو سو نقني إذنكو عافمات خبو أنيقو عافمات خبو دمانتين إلهي هنا ما سيدل إيدي بد ميل كستان جوغنو دمان إمود إسلام كميل كستي كلو ليهين إلهي سبحانه وتعالى عدوغا هكا قبطو إن أنت مرقيسن مرقد على حكا قاد أنت فرحسن إلهي فرحتها وسياديو dhammaan waa idin jeclahay habeen haddii ku tahay habeenka ku wacnaato maalin haddii ku tahay maalinta ku wacnaato wax kasta ay ku tahay ku wacnaato waxaan idii wadaa maanta wax kale idiima wado maanta waxaa idii wadaa barnaamij rabaa inta fariin inaan dad meeshan aan in badan aan u diro oo idinkana waxaan idinka rajeynayaa inaad like saari doontaan share garayn doontaan si dad badan ay u gaaraan waa intaas oo dadka aan fariinta u diraayo qof ka mid ah oo maaragtay iska bedela dhaqanadaas ugu horeyn qofka dadka aan fariinta u diraayo waxa u badan dumarkaan la hadli rabaa dumarkane inta wanaagsan maahan inta xun ayaan la hadli rabaa inta wanaagsan oo boqoriinta horta ilaahay subxaana watacaala oo maaragtay aana dadna ku xadgudbin aana dad dhibaateynin oo maaragtay ahlu khayrka ah ilaahay subxaana watacaala ha u siyaadiyo wanaagooda inta xunna ilaah soo hanuuniyo laakiin waxaan rabaa wax yar inaan fariin ugu diro haweenka Soomaaliyeed horta waxaan idin leeyahay mar ayaa la sheegay la yiri sheedaanka kala garbadan yihiin haweenka anagana waxaan u badanay dhanka bilaa naxariista inaan isku digano inaan gabar dhibaataysan marka aragnaa caayno oo tii maanta alxamdulillah xoogaa nolosheeda u qurux badnaatana aan ku daba taagnaano intaas ayay u badan yihiin haweenka Soomaaliyeed marka maxaa idin leeyahay haddana waxaa la yiri naarta ayay u badan yihiin subxaan allah ilaahay kuwii naarta laga xoreeyay allah nagu daro ilaahay subxaana watacaala han hanuuniyo gidigeen buwaan gafnaa laakiin gafafka ayaa waxa kala ah gaf aad bini aadan dembi ka galaysid ilaahay subxaana watacaala ayaaba ku dhahay addoonkayga dembigaad ka gashid asiga unbaa kuu cafin kara laakiin aniga kaa iga gashid ayaan ku cafinayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku dhahay addoonkayga ii nabadgeli aniga adduunka keensatay haddaba waxaa jirto aan rabaa haween badan oo Soomaaliyeed oo waxaan arkay gabdho Soomaaliyeed aniga aan noqdo dad kale ha ahaadaano shal markaa dhib aan ku jirnin nala daba taagnaa maanta markaa alxamdulillah ilaahay dhibka nagala saaran ilaa haddana daba taagan horta waxyar fariinaan idii rabaa inaan idii diro fariinteeda dhageyso gabdhaheena muslimiinta ahayo waxaa idii leeyahay horta Soomaali waxay inta u badan islaamnimada afka in laga sheegto laakiin aan lagu dhaqmin markaad tiraahdo qofkan alla iyo rasuul ka furtay markii lagu dhahanay macnaheeda waa gaaloobay ma ahan laakiin ilaahay wuxuu faray oo rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam nabigeeni oo sunnadiisii ka leexdeen waa macnaha waxa rabaa marka gabdhaheeniyo waxaa idin leeyahay gabar Soomaaliyeed oo walaasha ah oo adiga kula mid ah 9 bil ku dhalatay haddaa isku daydid inaa maalin kastaba dhibaataysid oo maalin kasta akoon cusub soo samaysatid 12 akoon inaa soo samaysatid 2 erey isla leh isku nooca u soo qortid walaashii muslimada ahay ma qofkaas aad adiga dhibaateynaysaa ma nafsadaada dhibaateynaysaa hadda waxaa isku malaysaa inaa qofkii adiga dhiboosid laakiin adiga naftaada ayaa dhiboosaa waayo qofkan ilaah baa abuurtay ifkana geystay hadduu qalad ku socdo hadduu saxan yahay ilaah unbaa xisaabinaya qofaan kusoo doonanin adan aqoon u lahayn ama haddaad taqaanid aad isqarinaysid oo akoomo cusub aad soo samaysatay magacaagana oo saarneen oo sawirna kuu saarneen soo ma ogid haddaysan kuu joogin gabadha miskiinta ahaad dhibaateynaysa aysan kuu jeedin ood isleedahay dhibaatay laakiin naftaada dhibaateynaysa aysan kuu jeedin soo ma ogid allah subxaana watacaala inuu kuu jeedo inuu ilaahay ku xisaabinayo inaad daqiiqad lagula socdo neeftaada meeshay ka baxayso iyo waxaad ku dhaqmaysid okay kasoo tag bal qof sug 9 bilood ku dhashay oo bini aadan yaanyo ah oo adiga kula mid ah miyaad ilaahay subxaana watacaala iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulkii ilaahay sunnadiisii iyo qolkii ilaahay aad u goynaysaa macnaha aad qofkii ugu hoolanta waayo markaan ku leeyahay
nabi maxamed calayhi salaatu salaam wuxuu dhahay horta beenta xaraam beenta waxaa la yiri mu'minka been ma sheego beenta aaday u xaraam u tahay fahamti aniga waxaan la yaabay qof bini aadan ani ilmid ah horta ilaahay inaan ugu furnayn subxaan allah beenna inaan u sheegeen waayo qofka runta ayaan u sheegayaa runta rabbiyaa igu jecel okay waxaan ku dhahay wax beenaa soo alifanaysiin aa soo qoraysiin oo been aaba jirinbo idinkoo is leedihiin qofkaa sharaftiisa ku dhaawac laakiin adiga ayaa nafsadaada halis gelinooy oo adiga ayaa nafsadaada cadaab u horseedoys waayo addoonkan ilaah baa ifka kaystay shalayna ilaah baa imtixaamay maantana ilaah baa guuleeyay laakiin ma ahan in aad shalay mashruuci aad la imaadeen uu idii suurtageli waayo oo shaatiyo been intaa soo gashateen aad ku qaraabateen oo idii suurtageli waayse aad fishilanteen haddana maanta mashruuc kale la imaadaan horta waxaa idiin leeyahay ilaahi subxaana watacaala u noqdo ani addoon idinka ilimid ahay aniga ilaahay addoonkayga ii nabadgelyo ugu dhahay waad ii nabadgelin wayse waad idaba socotiin weli ilaahay wuxuu ku dhahay dembigaad ka gashay addoonkayga usu unbaa ku cafin kara aniga kuma cafin karayaa lagu dhahay haddaba waxaa idiin leeyahay intay goor tahay gacantan intaysan ee xubintan kuu nuuxsanaya ee wax qori karto waxaa ku leeyahay ilaahay u noqo maalin waxaa la gaaraa xubintaada waxay qori karin maalin waxaa la gaaraa qofka dadka afka ku xamanaysa ee codkaaga uusan soo bixi karin oo biyihii lagugu dhibqaya xitaa aysan kaa soo noqonayn aa la gaaraya maalin indhihii aad ku aragto farxiyo aad ku arki waysay oo aad ku jibaateynaysa aad la daba taagan tahay maalin aad ku arki karin oo caad ay qarinayan aa la gaaraa ya maalin oo adiga saxarada iska geynaysa meesha suuliga oo aad gacantaad ku dhaqan jirtay aadan iska dhaqi karin ee iskaa baxayso adoona ogeyn ayaa la gaaraya xisaab waxay jirtaa xagga min allah waxaan idiin leeyahay dadow waad igu hoolantihiin laakiin alxamdulilah maanta heerkan aa gaaray mid kasii saraysana waan ku gaarayaa sawirkeyga ayaan ku gaarayaa sida aniga qof kasta oo mu'min ah oo la dhibaateeyo waxaad ogaataa inta la dhibaateeyay in ka wanaagsan oo ka khayr fiican oo ilaahay jisadiisa siinaya idinkood igu hoolantihiin laakiin aniga horaan u socdaa waxaa idin leeyahay dumarka Soomaaliyeed kommentiyada tira badan waxaan rabaa inaa meel kasta ku sheergaraysiin youtube-ka hadda ma u badno 1 2 3 4 qofaa soo gasho intaasna dad waa rabaleyd u galaan arkaan iska daleedaa maba ku sii raajiyo waayo madaxa la isla galayaa ani maadaama youtube-kayga oo dad ani ii jecel ay igu xiran yihiin family farxii Soomaali official dad ii jecel oo aad ii daneeyo aad ii taageersan dal ii dibid inta igu xiran yihiin ma jecel marka in la dhibaateeyo waayo luuqi u galayaan rabaleyd u galayaan ana intaas dadkaygana marba inay dambaabaan qof oo shayaadiin insi oo u soo bareeray inuu qof walaalkiis nabo ama been ku sheego ama ku daniyo danna waa dambina waa naar malo waa dambina waa danna waa laga fiican yahay dadka inay luuq dad oo u soo baxay qof u soo baxay ilaahayna ugu soo furtoo yiri aniga warkaa addoonkaaga ma dhaafay waan ku hoolanaanaya waan ku soconaya dhahay oo ilaahay ka soo furtay iyo qof sunnada nabi maxamed calayhi salaatu salaam sunnadii rasuulka ilaahay wuxuu dhahay ama khayr ku hadal ama iska ama sameyn waaye oo farxii ku hoolan marka idinkii oo idin dabaajinin sidaas darteeda ayaan youtube-kayga farxii Soomaali official dadkii ku xirnay aan idiga daleedahay marka hadda waxaan u maleynayaa xoogaa intii kusoo badan weeyaan saasay tahay ana waa daleedaa shaqo kalmaba qababo waxaan leeyahay shaydaanka waa la iska xiraa waan xiraa shayaadiin insiga waan iska xiraa isla markii markuu oo soo diraan qashinka ayaan kurshubaa marka waxaan idin leeyahay meel kasta waxay u badan yihiin xarunta shaydaamanka aad ay u badan yihiin 300 comment aad arkaysaa shayaadiin insi la soo qoray hadda dhex gashidni 30 qof 10 qof ayaa followers waa wax cusub hadda la sameeyay loogu talagalay farxii in lagu dhibaateeyo laakiin ani mi dhibaatoonaysid naftiina ayaad dhibaateynaysid ma fahantay idinka ayaa is dhibaateynaysid qoftaan alxamdulillah dad badan oo igula dagaalan arkay maxaad noloshaada youtube haddaysan wax ka helin intee noo sheeg intee wax kaa soo galeen waa sir aniga ilaahay subxaana watacaala inoo dhexeyso waa albaab ilaahay albaabyadiis ka mid ah ilaahay ii balaqay marka alxamdulillah ilaahay ayaana mahaddaas iskale u sugnaatay intaasna waxaan ku helay lambarkow inaan ahay hooyo adag ilmaheeda
wejigeeda u gaday social media wejigeedaas ayaan u gaday ilmahayga anoona fiirinaynin beri inaa shayaadiini insiga igaga faa'iidaysanaya ee qoraalo ee shalaa soo oyse aysan aanan fiirinaynin maanta alxamdulilah guusha aan gaarine haddaa dhibkaas dhan aana soo mari lahayn maanta heerka aan taaganahay wallahi inaansan gaari lahayn aaminsanahay ani inay ani khayr ahayd waayo waxaa layidhi wax aad shar u aragtid oo waxaa jira khayr ku ah wax khayr u aragtid oo shar ku ahaa jiro aniga laguma soo fariisanayo qof walaalkay inaan maalin hal ere hal xaraf oo dhibaateeyay inaan u qorin alxamdulilah ilaahay ayana mahaddas u sugnaatay waayo waxaa laygu soo koriyey inaan qof dulminin waxaa laygu tarbiyeeyey inaan maxaa la dhahaa qof walaal aan maxayto aan wax u dhimin maasha allah tarbiyada waalidiinteeda labadii isoo dhashay iyo labadii ii korisay inta dhimatay allah u naxariisto hooyadii macaana waa ii nooshahay ilaahay naxariisto jannaha ka waraabiyo adduunyo aakhiro ilaahay u naxariisto marka waxaan idin leeyahay tarbiyada waalidiintiina ha dhibaateynine maxaa idin lagu soo tarbiyeeyey maxaa idin dhahay dadka ku hoolanaado commenti ku caayo dhibaateeya wax kale ha usoo sameyno subxaanaka yaa ilaahay waxaa idin leeyahay ilaahay idin soo hanuuniyo dadkii layga beeray bliis u sheergaray inaan ahay qof bini aadan oo adiga kula mid ah addoon adiga kula mid ah 9 bilaan ku dhalatay 9 bilaan ku dhashay ha isku dayin ani madaxayga inaa ilaahay uga furatid aniga madaxayga inaad ilaahay uga furatid ha isku dayin bal maxaad isugu dayaysaa anoo addoon caadi adiga kula mid ahaan ahay oo maaragtay iska nyaanyo oo daciif iska ahaan ahay addoon daciif aan ahay oo adiga kula mid ah markaas ma ahan inaad aniga madaxayga ilaahay uga furatid aad dambaabid ay ugu danisid aad ila daba taagnaatid arqalado iyo dhiib iyo kaxar marka waxaan idin leeyahay shaydaan kasto shaadiin insi kasto daalum kasto mar kastaba ma aragtay xaqa ayaa soo daahiro way fishilmayaan marka insha allah waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo aad idin jeclaa dadkii laga beeray assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu